Siihayaha wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ahna kusimaha wasiirka ayaa maanta si wada jira u kormeeray iskuulka bartamaha ku yaala degmada Shingaani halkaas oo laga hirgeliyay mashruuc la xiriira biyo nadiif ah loogu talagalay inay cabaan ardayda iskuulka dhigata si caafimaadkooda loo ilaaliyo mas'uuliyiintan ayaa warbixin ka dhigaystay maamulka iskuulka iyagoo ballan qaaday inay garab istaagi doonaan intii karaankooda ahi waxaana xilligaasi safuuf dhaadheer ku jiray ardayda oo cabayay biyahaasi nadiifka ah oo caafimaad ahaan u wanaagsan mudane Cismaan Libaax Ibraahim siihayaha wasiirka tamarta iyo biyaha ahna wasiir ku xigeen ayaa ka hadlay fulinta qorshahan iyo muhiimadiisa 22 Maars maalintii biyaha adduunka la soo xafladaasi ayaan rabnay munaasabadaasi inaan ku beegno marka hoogaa farsamo ahaan waa naga dib dhacday laakiin waxay la xiriirtaa maalinta biyaha adduunka runtii iskuulkan bartamaha ayaan u garanay shirkadan la yiraahdo Livestock oo runtii shaqadan ayada qabatay ayada ma aragtay hawshan ayada iskuulkan ugu deeqday annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha wada shaqayn ayaan leenahay marka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda biyaha ayaan ka wada shaqayn doonaa wasiirka ayaa inoo sheegi doona iskuulkan waxaan u soo dooranay waxay tahay iskuulkan ilaa 700 oo arday dhigata oo ku iskuulka dawladda waay kuwa lacag la'aanta lagu dhigto private ma aha iskuulaadka lacagta ardayda laga qaado ma iskuulaadkii dawladda 24 iskuul oo dawladda diiwaan gelisay waay oo ku soconaysa marka sidaas ayaan sababtaas ayaan u keenay biyaha waa biyo nadiif ah oo ma aragtay aan jeermis lahayn oo aan wax kasta laga nadiifiyay way maadaama caafimaadku muhiim u yahay ardaydeenana ay noqdaan kuwa caafimaad biyo nadiif ah ay helaan wasiir dowlaha waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya kusimaha wasiirka mudane Maxamuud Cabdulle Jaabiri ayaa ka hadlay kaalinta wasaaradooda kaga aadan garab istaaga ardayda nidaam loogu talagalay biyaha in looga dilo jeermiska iyo wax kasta oo caqabad ku ah biyahaas nadiifkooda iyo ardayda inay helaan biyo wanaagsan oo nadiif ah taas oo marka u dambeysana qayb fiican ka qaadanaysa horumarkooda ee waxbarasho maxaa yeelay ardayga hadduusan caafimaad helin hadduusan helin nafaqo hadduusan helin waxyaabo badan oo mataqaana maskaxdiisa dhisaya waxa ku adkaanaysa waxbarashadii inuu si mataqaana hufnaan ku jirto ama si nadiif ay ku jirto uga faa'iideysto waxaan rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo wasiir Cismaan oo runtii waqti badan geliyay barnaamijkan uu ugu talagalay inuu ku bilaabo iskuulada dawladda asagoo heli kara meelo ka duwan oo in barnaamijkan lagu tijaabiyo runtii barnaamijkan anaga waa uga mahad celinaynaa ka wasaarad ahaan waxaana rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo in iskuulada kale dawladda ay la soo wareegtay 24 ka mid ah inay sidaa ay si lamid uga faa'iideystaan intii ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta iskuulka bartamaha waxay koob abaalmarina guddoonsiiyeen koox ka mid ah kooxaha kubadda cagta oo ay leeyihiin ardada iskuulkaasi dhigata kuwaasi oo ka guuleystay koox kale oo ay ciyaar saaxiibtinimo ay la dheeleen si loo dhiirigeliyo Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.